بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا شرفت لمال كستا جوجتان كلانتي وناكسن وعن ما أنت وأربعة ومالك ينكبر سنين برنامج في تحناها كبحي جري بيج كناسر عدد كنت آدي هذا يا دمها سنتين إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنات هيدين كسيو cid kastoo dhegaysatana wanaagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo oo sii faafisa. maanta walaalayaal mawduucaan ka hadli doono runtii waa mawduuc qalbigayga xanuujiyey. maxaa yeelay wax walba walaalayaal waa qalbiga. waxaanu noolnahay xilli ay zamanku uu yahay xilli aada u adag, fitantiina ay badatay, waxaa lagu jiraa aakhiru zamaan. waxaan rabaa dhowr calaamadood oo ka mid ah aakhiru zamaanka oo xilligan dhacay ama horey usoo dhacay in aan walaalayaal is xasuusino. taasi faa'iidadeedu waxay tahay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xasuusnaano. maxaa yeele walaalayaal qof walba waxaa ka dambaysa qabriga ayaa ka dambeeya, su-aashii ayaa ka dambaysa, aakhira ayaa lagu weydiinayaa. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waa runlow saadiqul masduuq ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala na soo diray waxyaalo badan uu sheegayna ay jiraan. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay in mataqaanaa hooyadu ay dhali doonto wiilkeeda oo hooyada la addoonsan doono. culimmada macno badan ayay ku fasireen. waxaa ka mid a in mataqaanaa waalid caasiga u bato. waxaa ka mid a mataqaanaa dadkii reer baadiyaha ahaa ee xoolaha aan haysanin ee riyaha raaci jiray inay maanta saradhaa dheer dhistaan oo lagu faano reerba reerku ku guri wen yahay daarta laga dhisto. waxaa ka mid a walaalayaal in madax ay noqdaan dad aan ahal u ahayn. mataqaanaa maanta dhibaatada muslimiinta haysata waxa weeye waxaa xukuma dad aan ahal u ahayn. arrintaasna waxay ka mid tahay calaamadaha saacadaha. waxaasoo dhanna waxaana lagu sheegay walaalayaal inaan ka digtoonaano. waxaa ka mid ah inuu cilmiga yaraado, markaasna jahliga uu faafo. maanta yaa ka jahli badan dadka, yaa ka aqoonnimo xumo badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu cilmigiisa noo sahlo. walaalayaal waxaa ka mid a inuu dilka bato. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay yacni qiyaamaha ka hor waxaa dhici doona inuu bato dilka oo muslimiinta islaayaan. maanta idinkama qarsoona walaalayaal waxa ka dhacaya muslimiinta, idinkama qarsoona waxa ka dhacaya shaam, waxa ka dhacaya yeman, falastiin, libiya, soomaaliya, borma, sii wad walaalayaal. waxyaalahaasoo dhan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inuu dilka badan doono oo qofka la dilay uusan garayn wax lagu dilay. maanta waa aragteen qof ayaa la dilayaa, kan dilay iyo kii dilayba ma yaqaanaan waxay isku dileen. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaa ka mid a walaalayaal khamrida in la cabo oo mataqaanaa heesaha la dhagaysto oo magac kale loo bixiyo oo la yidhaahdo bir bilaa dembi weeye. kan baa ka mid ah. mukhaadaraadka ayaa ka mid ah. waxyaalahaasoo dhan walaalayaal oo aakhiru zamaanka hadda aada u batay oo aynay ka qarsooneyn ayaa ka mid ah. waxaa ka mid a walaalayaal zinadii in la banaystay oo mataqaanaa caadi laga dhigtay oo laiska baashaalo oo saaxiibo la yahay oo wax walba laisku suubiyo, haddana mataqaanaa aan waxba laga soo qaadin. waad ogtiin waddamada reer galbeedka ah caadi ayay ka dhigteen. waxaa ka mid a walaalayaal heesaha in la xalaashado oo lagu raaxaysto. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku leeyahay yacni waxaa badan doona mataqaanaa waxaa imaan doona qowm ka mid a dadkayga oo khamrida cabbi doona oo xalaashan doona oo mataqaanaa heesaha banaysan doona. marka ilaah nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday waxaa ku dhici doona mataqaanaa ummaddan wax ku dhici doona dhulgoys, gariir, mataqaanaa isbeddel, weji xumu ayaa ku dhici doona. waxaasoo dhan walaalayaal waxaan u nahay shaahid ayaan u nahay. waxaa ka mid ah afxumada inay badato, dadka caytama, dadka erayada xun dhaha. dadka badanaa maanta haddaad dhegaysatid qof walba eray xun buu leeyahay, waxbuu dhibsanayaa, saas ayuu leeyahay. waxaa ka mid a mataqaanaa in ammaanadii la waayey oo la iskhiyaamo. waxaa ka mid a walaalayaal mataqaanaa qofkii khaayinka in aamin laga dhigo, kii aaminkaana la diido. waxaa ka mid ah inuu bato mawtul faj'ah, qofka deg deg u dhimanaya. waad aragteen walaalayaal qof dhalinyaro ah oo 20 jir ah oo aan dembi aan gelin aan waxba aan xanuunsanayn cafwan ayaa markiiba hore ka dhimanaya. imisaa maqalna hebel wadnaha ayaa istaagay. taasna waxay ka mid tahay calaamadaha qiyaamada ayay ka mid tahay. waxaa ka mid a waqtigii inuu isguro. waad aragteen hadda waxaanu ku jirnaa 2015. shalay ayay ahayd markii dhalanaysay, maantana waxaa la gelayaa 2016 ayaa lagu wadaa. waxaa kaloo jira dhulgariirka walaalayaal, inuu dhulgariirka bato, in mataqaanaa dabaylaha dhacaya ay bataan, in sunaamiga dadka la tegaya bato. waxaas dhan waxay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha. walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah in ummadda islaamka la bahdilo oo mataqaanaa laiskugu habarwacdo oo la duqeeyo oo la laayo. waxyaalahaas dhanna waxay ka mid yihiin calaamada qiyaamaha.
haddaba walaalayaal waxaasoo calaamada ah oo aanu u jeedno maxaan uga gaashaaman karnaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa in salaada la tukado uu salaadan ugu hagaajiyo maxaa yeelay waxa ugu horeeya walaalkayga muslimka ahow oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu xisaabin doono waa salaada qofkii salaadiisa wanaagsanaatana mataqaanaa khayrkiisa ayuu wanaagayaa waxaan kaloo ugu baaqayaa gabdhaha walaalahii ah inay is asturaan oo ayagoo qaawan ay mataqaanaa sawiradooda meelaha soo gelinin maxaa yeelay waxa internetka soo gala ama social mediaha gala weligood ka bixi maayaan haddaba quruxdaada qarso oo jirkaada astur si a uga badbaadiya cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dembigeena iyo dembiga waalidkeena inuu dhaafo islamarkaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha wanaajiyo qof kastoo wanaaga igu taageera islamarkaana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inta xanuunsan inta dhibaataysan inta murugaysan dhibkaa ka qaado oo walaalkii naasir cadceed oo idin leh xasuusnaada inaad like saartaan bejkiga islamarkaana aad u gudbisaan walaalaha kale oo aad like sii saartaan islamarkaana aad rugtayda youtube-ka soo booqataan oo geeska maartay subscribe dhag ku siisaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu